ugu horreyn waxaan rabaa in halkan ka salaamo shacabka Puntland guud ahaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan shacabka Puntland bahda media cid kasta oo ay u suura gasho inay dhageysato ama fiirsato programkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkan jaraa'id yani suuqin yeeray maanta wuxuu ku saabsan yahay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka oo ciwaankeeda ujeedadeedu yahay shaqo fariisin shaqo fariisintaas waxay ku socotaa ku taliyaha ciidanka booliiska dowladda Puntland ogeysiin dhammaan ciidamada booliiska meel kasta ay joogaan ogeysiin wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ogeysiin wasaaradda amniga DDR dowladaha hoose Puntland ujeedo shaqo fariisin waxaa dhammaan mas'uuliyiinta warqadaani tooska iyo ogeysiinta ku tahay lagu wargelinayaa in shaqadii laga fariisiyay ilaa amar dambe taliyaha ciidanka booliiska dowladda Puntland Cabdulqaadir Shira Faarax Erig maanta oo taariikhdu tahay August 7 2017 waxaa ku saxiixan fulin wacan Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland waxaan rabaa marka inaan ka bixiyo faalo yar sababta ay ku timid iyo aasaaskeedii meeshu ka bilowday shalay subaxii 8 subaxnimo anoo xafiiskayga fadhiya waxay soo wacay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu weydiiyay inaan ka warqabo case 12 arday oo laga sii daayay saldhigga dhexe ee Garowe waxaan ugu jawaabay madaxweyne ku-xigeenka ها مدحوينه والله صعدا تليها قيب تسيداي وانا اي شيء وحنا كسيداي سي شرعي وافقسن وحي ويديي وحي امري ان شغله ka joojiyo taliyaha qaybta ilaa amar dambe inta laga baarayo case-kaas waxaan ka codsaday madaxweyne ku-xigeenka amar qoraala in uu keeno si aan shaqada uga joojiyo kadibna wuxuu yiri waxaan bixinayaa amar afka ah oral order shaqada ka jooji kuma joojin karo oral mawaadin mas'uuliyad haya oo shaqadiisa gudanaya haddana ugu maqan shaqo gobolka dhexdiisa magaalada Murtila ku maqan oo shaqo qaran aan uga diray shaqada inaan ka joojiyo abaal gudbu xaq u leeyahay xaq uma leh in shaqada laga joojiyo oral haddii si adigu madaxweynaha aad ka joojinayso warqad qoraal ah amar isi tan adiga kaaga joojinayay baan soo saarayaa waa hagaag baan madaxweyne ku maadsanta sida darteed warqadaan soo saaray aan hadda idin akhrinayo waxaan rabaa inaan shacabka Puntland u xaqiijiyo xaqiiqada dadka la sii daayay waxay ahaayeen halkan waxaan ku hayaa warqad uu soo qoray taliyaha saldhigga dhexe dhamme Maxamuud Muuse Bile warqadaas xafiiskay ku socotay ana ugu socotay ii soo diray wuxuu leeyahay taariikhdu markay ahayd 22kii waxa sareeyay guuto Muxiidiin Axmed Muuse saldhigga ku soo xiray wiilal tiradoodu dhan tahay 13 kuwaas oo ku eedeeyay in ay yihiin robbery ama burcad dadka dhaca hase yeeshee kuma keenin wax muujinaya in ay dambiyadaas galeen qalabkii dambiga lagu galay iyo qalabkii ay boobeen midna laguma keenin taariikhdu markay ahayd 24kii waxaa kormeer noogu yimid gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad oo ay la socdeen garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda saldhigii bay yimaadeen si ay u kormeeraan oobiga iyo saldhigga waxa yaala waxay yiraahdeen maxay ku xiran yihiin 10 wiil keena wixii lagu qabtay waxaan u sheegnay in uu noo keenay Muxiidiin oo yiri wixii aan ku qabtay ee ay wateen ayaan idin keenayaa noomana keenin haddaba waxa wacay
maxkamadda waxay wacaysaa Muxuudiin oo ku tiri maxkamadda keen wiilasha iyo wixii aad ku qabatay taariikhdu markay ahayd 26 waxaa kormeer noogu yimid taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal wuxuu arkay maxaabiis xiran wuxuu yiri wiilashan ma u haysaan gal dacwadeed iyo dambi muujin waxaan ku niri uma hayno waxaana wiilasha ka mid ahaa 2 wiil oo TB qabta oo daawo ka qaadanayay magaalada iyo kuwa arday ah oo iskuulkoodii dhaafay kuwaas oo ka haray dadkii timaha laga jaray ee ganaaxa lagu qaadayay ee kantaroolka laga sii daayay dadka loo haysta taliyaha qaybta gobolka Nugaal waa dhalinyarada noocaasa halka waxaa ka cad taliyaha saldhigoo cadeynaya dad la ganaaxay inay jiraan maxkamadina ma ganaaxin cidda ganaaxday waa la isweydiinaya waa in la daba galo la ogaado cidda ganaaxday oo lacagta ka qaaday oo timaha ka xirtay wadanka dawlad baa ka dhisan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn buu leeyahay constitution buu leeyahay lagu kala dambeeyo oo lagu hogaamiyo maamulka dawliga shuruuc baa jirta ciidanka booliska ku shaqeeyo koodija binaale ama xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta wixii aan waafaqsanayn procedure-ka ama waxa la yiraahdo procedure binaale ama penal procedure code wixii aan waafaqsanayn oo lagu soo xiro saldhigga waxay muujinaysaa inaanay jirin shuruucda waddanka u degsan inaan loo hogaansanayn procedure penal code wuxuu amrayaa 48 saac wixii ka badan in garsooro la horgeeyo oo la weydiisto xalaaleyn haddii kayskaas ay u dhiman tahay baaris ama eedaysanayaashii ama markhaantigii qayb ka maqan tahay ardayda la soo xiray 22 fal kasta ha ku jireen fal qofku dambi waa gali karaa da' kasta ha noqdee laakiin wuxuu u baahan yahay in sharciga la waafajiyo 22 baa la soo xiray 26 baa la sii daayay 6 maalmood bay xirnaayeen garsoorana lama horgeyn wax evidence ama cadeyn oo muujinaya in lagu hay inay wax boobeen iyo qalabkay ku boobeen iyo cidii muxuu ah dhibanaha ahayd ee dacweynaysay midna lama keenin saldhigga oobiga lagu qoray gal dacwadeed looma sameyn statement lagama qorin selection lagama dirin ma aha ayaga oo kaliya dhammaan saldhigyada waxaa ka buuxa oo ay ku soo booqdeen hay-adda xuquuqda aadamiga waxay soo booqdeen stationada booliiska magaalada Garowe dhammaan waxaa ka buuxa dad qaarkood xiran yihiin 3 bilood iyo 4 bilood oo aan la horgeyn maxkamad halka waxaa ka muuqanaysa inaan la daryeelayn xuquuqda shacabka dadku dambi waa gali karaa laakiin waxay leeyihiin hab loo saxo qofka marka la xirayo ama la xukumayo waa saxitaan ma aha in la dilayo waa la saxaa dadka jeel baa la geeyaa jeelka waa lagu saxaa jeelkay ku jiraan dhowr sanadood waan tagay maalin dhaweyd number aad u fara badan ayaan ku arkay oo aan xukunayn oo aan gal dacwadeed lahayn oo jeelka isaga jira waxaan tagay saldhigga galbeedka waxaa la yiri Muxuudiin bay xiran yihiin waxaan tagay saldhigga dhexe waxaa la yiri Muxuudiin bay xiran yihiin madaxweynaha ku-xigeenkan weydiiyey gurigiisaan ugu tagay maalintii Jimcaha waxaan weydiiyay dadka noocaas inay xiran yihiin xuquuqna ay leeyihiin xaq u leeyihiin in sharciga la horgeeyo hadday dambi galeen wuxuu iigu jawaabay waxa jawaabaan qancin waan ogahay buu yiri dadku inay xuquuq leeyihiin laakiin Cabdiwali waa mas'uulka sidaas iigu jawaabay waxaan leeyahay marka cid kasta oo mas'uuliyad haysta mas'uuliyad ama maalin hay ama bil hay ama sanad hay xuquuqda dadka shacabka ah waa lagama maarmaan waa in la ilaaliyo haddaan la ilaalin dadku marka dambe kolley ahaan mayaan dad iska xareysan qaar baa ku curyaamay hadda laygu saldhigga dhaxan ku arkay kici waayo la yiri excuse me laygu yiri lugooda ku soconayeen marka saldhigga imanayeen maanta aan dhaqaaqi karin waxa loo magacaabay laan la yiraahdo laanta la dagaalanka argagixisada iyo muqaadaraadka halkan waxaan hadda ka akhrinayay dadka Muxuudiin soo qabtay in lagu eedeeyay muqaadaraad iyo argagixisada midna ee lagu eedeeyay dhalinyaro magaalada Faral xun ka sameysay Muxuudiin shaqada uu hayo ma aha shaqadii loo idmaday waa shaqadii ciidanka booliiska qaybta Nugaal ay lahayd weeyaan shaqadu hayaa waxaana waajibaad ku saaran yahay madaxda sare inay kala saarto
shaqada booliiska iyo shaqada la dagaalanka argagixisada kow qodobka labaad waxa weeye la dagaalanka argagixisada Puntland muxuu xil saaran yahay wuxuuna ka shaqeeyaa magaalada Garowe oo kaliya aaway magaalooyinkii kale kow Garowe waxay ku taallaa xuduntii waddanka muqaadaraadkii argagixisadii iyo qaraxyadii iyagoo socday waxay tagayaan Boosaaso Garoweyna soo mareen Muxuudiin ciidankiisa wuxuu kooban yahay Garowe idinka jawaabta leedin rabaa Suudiinta wallahi Muxuudiin waajib u leeyahay waajib baan leeyahay annagoo dhan waxaan xukuumada madaxweynaha Muxuudiin waa laan ka mid ah ciidanka booliiska hoos yimaada laakiin waxa muuqanaysa inuu garamarsan yahay nidaamkii kala dambeynta ahaa ee xukunka ee waddanka u degsanaa taasna saxitaankeeda waxa iska la madaxda sare hadday khaladka saxaana falillahi alhamd hadday sixi waayaan khaladka raacaana ayaga dib ugu soo noqon doontaa oo kale waddanku dad baa leh dad baana degan iyagaana u baahan yihiin inay saxaan haddii cid wax u saxda waayaan